عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا تصمى دوت صو مانتا waxaan rabaa inaan nila qaybsado alaab yar oo mudaawaad ah oo aan ka sameynayo shaahigan wuxuu u roon yahay waa alaab kala gooni ah oo kala nooc ah oo isku daraayo 10 shay ay ka kooban tahay. Shaahan waxaan ugu talagalay inaan u sameeyo caruurteyda hergabka hadduu ku dhaco dhuunta kii xanuunayo. Alaabtan dad waaweyn ilmo yar kulli way u fiican tahay. waxaa ka mid ah muxuu ahaa xabad soodada oo kale in la isticmaalo santajabiilka diisiga dhagayaraha alaabtan dhan mudaawaad waaye oo 10 shay isku daraayo. waxay u fiican tahay quunka dhuun xanuunka dadka oo ku dhaco hergabka. insha Allah biidna Ilaahi kariim ilaahay daawaha nooga daro wixii daawo ah una yeesatid ayaa daawo ah. laakiin alaabtan hadaa isku dursatid waan hubaa aniga tijaabiyay aniga sameystay mar walbana waan sameystaa. marka maanta maadaama hergabka batay hergabkan iyo xanuunkan fayruska socdo fayruskayba ka hortagaybo hal mid waa sameyn kartaa cunugii caawi waaye markaa isku dartid caanaha intaad kululeysid qandac kalitid ugu dartid waa miire mar walba ilmaha afka u galaya waa miireysa. shaaho kaleenta waa u karnay waa qaboojinay qandac yaraa ka dhigaysa. marka 10 shay ka kooban tahay ayaan ii sheegaa insha Allah biidna kariim. inta waxaan ku haystaa xulbad, inta waxaan ku haystaa filfil madow ah inta waxaan ku haystaa sanjabiil, inta waxaan ku haystaa qarfo, inta waxaan ku haystaa joos. maasha Allah tabarakallah. saxankan kala iisoo halkan waxaan ku haystaa heel, halkan waxaan ku haystaa filfil cad, halkan waxaan ku haystaa dhagayare, halkan waxaan ku haystaa diisi, halkan waxaan ku haystaa xabatul baraka ama xabad soodada u taqaan. xabad soodada waa daawo, diisiga sidoo kale. dhagayaraha muhiim jiddan aad u fiican dhagayaraha maba laga heli karo. waa 10 shay 10 shay maxaa ka soo qaadanay ma taqaani. okay qaandada yariista madow intana sanjabiil waaye qaandada yar, 2 qaando qarfo ah, 2 qaando joos ah, 1 qaando xulbad ah. maadaama ilmo ay cabaya xulbada ma ka badan kari ay dareemayaan. qaandada yar oo filfil cad ah intana waa heelka waa lagu carfinaa si u dareemin riixada xabasoodada ama xulbada. heelka waa qaando, xabasoodada waa qaando, diisiga waa qaando, kana waa 2 qaando waa dhalinyarihii 2 qaando. dhalinyaraha muhiim ah insha Allah haddaan isku dardareynaa ilaahay yiraahdo daawasho wacan. bismillaahi raxmaani raxiim. bisinka waxaa lagu bilaabay baraka maaleh samaleh. ما شاء الله تبارك الله. لا نوع الفرق العافمات كحبيبنا مركا علاقتيني سنة ما شاء الله ساسا سكوه حسيسا وحبا نوع دريسا ليك سانا سكوه درسدا مروة ديسيga حتى مالتو وانكو يريي وانا قرار يرو ليهي عرفت markaan u sameynayo waa ka yarayaa. laakiin aniga xaajiga markaan sameysanayo maasha Allah diisiga u badsanaa diisiga daawo waaye. qorax lama dhigo, qorax isku dhigin. dadka Afrikada jooga Soomaaliya oo kaleenta qoraxda isku dhigin. alaabtan aad u fiican tahay weliba dadka waaweyn ama maxay tahay dhalinyarta qofkii cabayo kaleenta malabka aad u fiican yahay inaad ku darsatid. maasha Allah yaaba ka sheekeyn karaa waa taa alaabta injeedin kulli saasan isku soo dardaray. waa ina waa lagu shubaa waal oo ilayska laga celinaayo ama yani qoraxda ama aftiinka badan yani waal yar xoogo mugdi ah ku shuban kartaa sida dhalooyinka guriga xataa ku yaala. laakiin armaajada gudaha gashan kartaa. ayu waal aad u baahan tahay ayaa ku shubanaysaa. muhiim ma ahan in aad waal u soo gadatid isdhibtid maya. bismillaahi raxmaani raxiim. ilaahu noo barakeey. marka walka alaabtaani haddaad isku darsatid waxaan kuu sheegayaa inaad kasoo dhiman doonto ra'yi inuu ku anfacayo. ku deeqi doontaa insha Allah waana ka heli doontiin. waad xiranaysaa
armaajadaada gashanaysaa insha allah. haddaad dhalacad ku shubatidna alaabtan armaajadaada gasho soo aftiinka ku arkin maasha allah. hadashaan xabasoodada iyo dhageeraha iyo maasha allah ilaaska sidooda waa laga ilaaliyaa insha allah. shaahigaan ka sameyn lahaa ayaan tusinaa xaabee. haddana shaaha sameynaa dabkaan shiicinaynaa hadduu ilaahay yiraahdo. digsigaa ku karinee kadibna waxaa ku shubeysaa alaabtii qolbadii biisidii aad ku soo darnay ayaad ku dareysaa. kadibna waad miirinaysaa ama sidiisaa ku cadeysaa. marka insha allah saa u sameynayna ilaa arka insha allah. qandada intaasaa ka dhigan kartaa, haddaa rabtid waa ka yareyn kartaa, wax yar lee laga rabaa. ana hadda intaasaan ku darsanayaa. waxaan rabaa si fiican inuu igu soo guduuto hadduu ilaahay yiraahdo. dabkaan ku karinayaa waa ujeediin waa kaasaa. markuu saas kugu karo kadibna waxaan sameynaynaa bakeeriyan kusoo shubanaynaa. waa nin tusinaa insha allah. asxaabey haddana waa kanaa digsigii shaahi aan ku karinay ujeediin. hadda aniga ma miiraayin asigoo saas ujeedada waa wareejiye. xataa waxaan rabaa si fiican inuu igu sii dhiimo hadduu ilaahay yiraahdo. ujeediin ma miiraayo. kan kale waa miiri kartaa haddaa rabtidna sidiisaa ku shubanaysaa. ana marka inaan miiro ma rabin. waa kaasaa ujeediin waa kaasaa. haddaa rabtid sokoraa ku darsanay. bakeeri kale waa kanaa asigana waxaan usoo wadaa hadduu ilaahay yiraahdo inaan biyo ku shubo. kanna bakeeriga labaad waxaan sameeyey biyaan rabaa in aan kor ugu shubo. kii haddaada digsiyaan ku kariyay. kan laakiin biyo karkaraya ka karsanay waad ku shubanaysaa. mujeediin makiinada shaaha kusoo karkariyey. waa kanaa bakeerigii labaad asigana makiinada biyaha kusoo karkariyey. bakeerigii labaad saasa ku samey waa isku mid mar. hal bakeeri cadeynaynaa. hal bakeerina sidiisaa lagu cabaayaa hadduu ilaahay yiraahdo. afurkiyaa waxyar ka dhiman laakiin waxaan is dhahay asxaabta la qeybso reer tusma wax tusiba horta. ujeediin reer tusma wax tusiyaa is dhahay waan cadeeyey. waa kaas ujeediin. haddii la cadeeyo muxuu noqday shaah cadeys caadi. labadaba ma miirin. waa miiri kartiin laakiin ani ma rabo inaan miiro. ma fahanteen? labada waa kaas hadduu ilaahay yiraahdo. shaah cabaysid inaad makiinad ku karkarisidna muhiim maaha. inaad muxuu ahay digsi ku karkarisid xataa muhiim aha. waxaa sameyn kartaa baysid kora ugu darsan kartaa. kafee haddaa cabaysid kora ugu darsan kartaa. maasha allah alaabtaan lagama sheekeyn karo. maasha allah hadda kabacdina waa soo gelinaya waxyaabaha qufaca ilmaha wareeriyey iyo dadka qufaca wareeriye u fiican oo kale. insha allah inaan soo geliyaa rabaa. videogeena intaasoo ku dhammaaday. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.